bal markaana warbixin ku saabsan arrin naxdin leh oo ka dhacday waddanka India isla markaana saameyn ku yeelatay guud ahaan dalka India mas'uuliyiintooda madaxdooda ciidamadooda amniga shaqaalahooda gurmadka degdega kuwa caafimaadka iyo guud ahaan baqarada Asia dunida inteeda kalaba warbixinta waxaanu soo gaar ugu eegaynaa wararka ugu dambeeyay ee ka imaanay waddanka India ay tahay tirada imika loo yahay waxaa dhintay 7 caruur ah iyadoo in kale oo ka badan la badbaadiyay tiradaasna ay sii kordhi karto sida warbixinada iyo wararka ka imaanaya waddanka India ay sheegayaan 7 caruur ah iyo arrintan naxdinta leh ka dhacday waddanka India ayaa 7 caruur ay dhinteen kadib markii uu dab qabsaday qayb ka tirsan isbitaalka caruurta ku yaala magaalada New Delhi ee caasimadda waddanka India qaasatan isbitaalkaas wuxuu ku yaala dhanka bari ee magaalada New Delhi ee caasimadda waddankaas arrintan ayaa timid kadib markii saameyn ballaaran ay ku yeelatay baraha bulshada ee waddankaas iyo guud ahaan warbaahinta waddanka India ayaa shaqaalaha gurmadka degdega iyo kuwa caafimaadka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen tirad caruur oo gaaraysa ilaa 10 oo iyaguna ku jiray qaybta uu dab ku qabsaday ee isbitaalka caruurta ee magaalada New Delhi marka tiradu way ka badan tahay caruurta meesha ku sugnaa laakiin qaar baa marka banaanka la joogay halka 10 ka midna shaqaalaha gurmadka degdega ay soo badbaadiyeen 7 ka midna caruurtaas ay ku geeriyoodeen gudaha qaybtii uu qabsaday dabka ee arrintan naxdinta leh ee ka dhacday magaalada New Delhi sidoo kale dhaqaatiirtu waxay sheegeen qaarkood warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in caruurta dhintay ay u dhinteen qiica dabka korba intuusan soo gaarin dabka qaybta ay ku jireen marka dabka intuusan ku faafin qaybihii kala gadisnaa ee gudaha isbitaalka caruurta ee magaalada New Delhi qiica ayaa wuxuu soo gaaray caruurtii qaarkood waxay dhalanayeen toddobaadyo qaarkoodna waxay dhalan yihiin maalmo oo caruur dunidaba ay ku cusubtaa noloshooda ayay ahayd oo u geeriyooday qiicaas dabka xoogga leh ee ka kacay qaybo ka tirsan isbitaalka caruurta ku yaala magaalada New Delhi dhankeeda bari ciidamada booliska iyo ciidamada sida gaarka loo tababaray amniga oo iyagu goobta gaaray ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen inaysan ka hordhaceynin xaaladda iyo arrimaha jira balse ay sameyn doonaan baaritaan la xiriira sababaha dhaliya dabka isla markaana ay sheegeen ama ay ku celceliyeen cid kasta oo ku lug leh ama saameyn ku yeelan karo arrintan dhacday ama dhacdadan amaba mas'uuliyadoodii gabay sida ay sheegeen ciidamadu waxay warbaahintu sheegeen in cid kasta oo arrintan lagu helo ama dambigaas ay wajahi doonaan cadaaladda isla markaana lala tiigsan doono sharciga si guud marka loo fiiriyo waddanka India oo ka mid ah wadamada dunida maanta horumarsan markay timaado xagga dhaqaalaha ayaa haddana waxa ay ku liitaan markay timaado arrimahan oo kale xagga dabka oo dhawaanahanba iyo guud ahaanba waddanka ka dhaca xagga badqabka dhismayaasha laga dhiso gudaha waddanka India ha ahaatee waxaa xusid mudan in isla toddobaadkan gudihiisa waddanka India ay ku dhinteen tiro dad ka badan 27 qof oo 9 ka mid ah hayeen caruur oo iyaguna dab uu ku qabsaday gobolka Gujarat oo ka mid ah gobolada dhaca ama ku yaala dhanka galbeed ee waddanka India oo ka mid ah gobolada waaweyn dhaqaalahiisu xoog badan yahay guud ahaan waddanka India uu ka mid ah wadamada horumaray xagga dhaqaalaha dunida balse xagga badqabka iyo dhismayaasha iyo markay timaado arrimaha la xiriira fariimaha sida ka hortagga dabka iyo waxyaabaha musiibooyinka ay aad u liitaan dhismayaasha waddankaas ama fariimaha aanba aad loo qaado marka tirada iminka dhimatay 7 caruur ah ee iminka loo yahay marka laga soo tago isla toddobaadkan waxaa dhintay 27 qof oo kale tiro ka badan oo 9 ka mid ah ay hayeen caruur ayna ku dhinteen gobolkaas Gujarat ee dhanka galbeed ee waddanka India guud ahaan marka dhinaca kale laga fiiriyo dalka India ayaa waxa badanaa ka dhaca dhacdooyinka noocan oo kale oo aysan ahayn markii ugu horeysay oo dhacdooyinkan ay yihiin kuwa isdaba jooga oo marar badan dhacay waxaana sababaha la xiriira inta ugu badan la sheegaa in aan marnaba la tixgelin sharciyada la xiriira dhanka dhismayaasha guryaha iyo waliba ilaalinta sharciyada badqabka dadka ku nool goobaha dadweynaha ama goobaha dadku isugu yimaadaan ama ha noqoto xarumaha caafimaadka suuqyada meelaha dadku ay markaa isugu yimaadaan arrintan ayaa keentay in saameyn ballaaran ay ku yeelato dadweynaha ku nool gudaha waddanka India isla markaana ay ka hadasho warbaahintii ilaa iyo ra'iisul wasaarihii dalka India Narendra Modi waliba taliyaasha ciidamada mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa magaalada caasimadda ah New Delhi ayaa iyaguna ka tacsiyay arrintan inkastoo su'aalo badan ay dul hoganayaan cidda maamulka haysa isbitaalka caruurta ee dhacdadan ka dhacday ama arrintan naxdinta leh ka dhacday caruurta geeriyootay eheladoodii iyo qaraabadoodii oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa carab ka muujiyay isla markaana sheegay in aysan marnaba ka hari doonin ciddii ku lug lahayd dhimashada caruurtooda inay ku dhintaan dabka ka kacay ama qabsaday qaybo ka mid ah isbitaalka
magaalada New Delhi caruurta ee ku yaala bariga magaalada New Delhi haddii wixii ku soo kordha oo warar iyo warbixinaha arrintan haddii been waxaad kula socon doontaan warbixinta Ilays Media studio-heena magaalada London warbixintan ka imaanaysay waxaan ila socodsiinaa aniga Maxamed Saciid saxaafintan ku kulmayno warbixinteeda xigta waxaanu kaga tegaynaa meel baad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo